meheradan bunka ay gado buugta ku lamaanisay waa sidan labada gelinba oo masa waxan badna dadka fadhiya waxa ay ku fogan yihiin akhriska buug aan laga kirayn oo lagu diyaarshay aqal ku yaal maqaaxidan dhexdeeda Fawsiya Maxamed Bangax oo BBC-da u warantay iyo walaasheed oo labaduba dibadda wax ku bartay ayaa bartan hirgeliyay fikirba meel baad fadhiisan waxaan ku qofiyay maadaama inaan nagadna kaliya muhiimadu ma ahan iyo inaan shaahi wax la wareegno marka waxa weey inaan wax isku dhaxwadno maadaama dadku aan akhris iyo waxaas in ogeen inaan fikirkaas akhriska ku soo biirno maadaama anagu dad akhrisnahay anigana ku soo barbaaray wax akhrinta aabahay Allah naxariistay bugaagta kutubiyada wax walba historicalka iga sheekeyn jiray digital app akhriso marka aniga qaasatan Fawsiya ahaan baa waxaan jecelahay akhriska gabdhaha albaabada u furay ujeedkooda waxa ay ku sheegeen in meesha laga saaro fadhi ku dirirkii lagu raagi jiray ee Soomaalida badan ragaadshay fikirkaasi qaarka uu ku duxay oo judhiiba la jaan qaaday waxa kamid ah Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo Puntland wasiir ka soo noqday waxay bedelayaan dhaqankii fadhi ku dirirka ee maqaayadaha inta la yiraahdo maxaa sheegtay in wax lagu xanto iyo wax lagu dacaadeeyo unu furnaan jirtay qofkii bunkiisa cabaya aqoontiisina korarsanayo buu akhrisanayo naftiisa u raaxaynaya inta la og yahay akhrisku waa muhiim oo doris la sameeyana waxa lagu ogaaday in Soomaalidu ka aradan tahay arintaasi akhrisku wuxuu balaariyaa maskaxda wuxuu kordhiyaa aragtida wuxuu nolosha wax ka tara qofku dhinac badan wax ka eego sheeg waxay ku maahmaahan imisa luuqadood baad ku hadashaa ama imisa af baaqtaada ama imisa buug baad akhriday waxay ka dhigan tahay imisa qof ayaad ka dhigan tahay markastoo aad buug akhridid ama dhaqan kala gedisan aad akhridid dalkaas dhaqankiisa iyo maskaxdiisa iyo aragtidiisa ayaad ku dhex jirtaa magaaladan Garowe iyo guud ahaan Puntlandba waa ku yar yihiin librariyada dadka u furan ee akhriska loo asteeyay waxaase rido kale oo aqoon laga durduurto furay adduunyadan geediga ah ee tiknoolajiyadu galbinayso tiknoolajiyadu akhriski waa fududays ma la oran karaa berigi hore qofka ku adkaan jirtay inuu buug raadiyo oo buug markuu soo baxayo daabacaadii iyo hard book wax raadiyo laakiin hadda way fududaatay qofka mobilkiisa oo kale uu ka akhrin karaa ku dhawaad sanad bunka iyo buugtu bartan wehelahaayeen ma ogin in ay hirgaleen ahmeedihii gabdhaha walaalaha ah ee aragtidan lahaa waxayse la kulmeen arrimo kale bugaagti badnaa aan keenay oo lacagta badan ka soo bixiyay oo juhdiga aan geliyay wadanka dibadiisa aan ka keenay baaba dadka qaar la tageen intay wax isku shaaxabiyaan wax akhrisanayaan qaarkood isku ilaawayaan qaarna waa ka qornaayo wax dhaana deposit wax dhaan ka qornaa wax dhaana buugaas intaas adigu ku gadan yahay amal magaciisa kaarkiisa wixaas dhanba ka qaadnaa laakiin waxa badan ba inta badan oo la tagay anaga naga lumay